gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye Axmed Cabdi Dheere oo ay wehelinayeen wasiirada wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha bulshada ayaa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada madaxda gobolka Sanaaga Ceerigaabo waxaana intii aanay soo gaadhin gudaha magaalada Ceerigaabo si diiran loogu soo dhaweeyay gudaha degmada Yufle ee galbeedka degmada Ceerigaabo waxaana halkaasi ku qaabilay murashaxiinta xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaag iyadoo soo dhaweyntaasina ay si ballaaran uga dhex muuqdeen kumanaan ka mid ah taageerayaasha murashaxiinta kale ah Maxamuud Warsame Jaamac oo sharxan golaha baarlamaanka ee gobolka Sanaag iyo murashax Saciid Jibriil Xasan oo sharxan golaha deegaanka ee degmada Ceerigaabo waxaana munaasabad ballaaran oo loo qabtay wafdigaasi halkaas hadalkiisa kala dambeeyay murashax Maxamuud Warsame Jaamac iyo murashax Saciid Jibriil Xasan iyo waayeel iyo aqoon-yahan iyo waliba boqorro wadana gudoomiye ilaa iyo maalintii la aasaasay xisbiga kulmiye ilaa iyo maanta reer Yufle umay kala hadhin taageerada ay la garab taagan yihiin xisbiga kulmiye aroortii gudoomiye markay soo kacaan iyo habeenkii markay sii seexanayaan magaalo waxa ugu dhaweyd Ceerigaabo gudoomiye waxay u socon jireen 3 saacadood maantana 15 minute bay u socdaan wadadan horteena maraysa ayaa sababtay reer Yufle markaa waxay aad u aaminsan yihiin in wax qabadkii Yufle u muuqday mudane gudoomiye waxaan kiloon kuugu bushaareynaa inay magaaladani tahay oo hay'ada Sanaag oo Gabiley haday Maroodijeex u tahay Yufle Sanaag bay u tahay oo hayo tahay kulmiye Yufle iyo Gabiley reer kulmiye yihiin libinta iyo guusha kulmiye mid soo liicaysa maaha waxaanu halkan ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha saddexaad ee xisbiga kulmiye mudane Axmed Cabdi Dheere iyo wafdiga hogaaminayo ee nooga yimi caasimadii Somaliland isagoo inooga sida salaan madaxweynihii jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waanu soo dhaweynaynaa mudane adigii wafdigaagaba ku soo dhawaada gobolka Sanaag degmada Yufle iyo degmada Ceerigaabo dhammaan gobolka Sanaag ayaanu ku soo dhaweynaynaa waxaanu cadeynaynaa oo halkan isu soo taagnay in xisbiga kulmiye aan la barbar taaganahay taageero buuxda oo hiil iyo hooba leh taageero buuxda oo codkii leh waxaan aaminsanahay tan iyo intii gobolka Sanaag la soo marayay in wafdigani ay arkeen ama wasiirada dawladuna ay arki doonto xukuumadan iyo xisbiga kulmiye sida heeganka loogu yahay oo dadkiisu ay diyaarka u yihiin oo ay xildhibaanada u soo dhaweynayaan waxa isaguna dhankiisa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoyska Mustafa Godane oo ku hadlayay afka wafdigan oo mahadnaqay soo dhaweyntaasi loo sameeyay maanta reer Yufle waxay u qoysgooyeen kuwii lahaa kulmiye sidiisii waad aragtaan wali caasimadii gobolka ee Ceerigaabo la islama gaarin waxdaraha waxa dhigaya waa Yufle bal Ceerigaabona maxaad ka malaynaysaa aad iyo aad baanu idinku mahad celinaynaa dadweynaha reer Yufle waxaanu ka codsanaynaa siday maanta noogu soo baxeen inay u soo baxaan maalinta doorashada codkana u bixiyaan iyadana aad iyo aad uga codsanaynaa xildhibaanada u sharaxan Yufle ee ka sharaxan xisbiga kulmiye inaad soo saartaan waliba gaar waxaanu idinku codsanaynaa ninka libaaxa sita Yufle waa xaalad lagu yaqaanay iyo xisbiga kulmiye ciiduma kala tarjiinto waa walaalo wadad siiqaana aad iyo aadna way ugu mahadsan yihiin inta iyo in ka badanna way soo dhaweeyaan kulmiye sida ayaan horta u sheegay wafdiga noo tagi ta kale hadal yar oo kaftaro oo wasiirku yiri markaan ku yara daro wuxuu yiri libaaxa annuna waxaan leenahay mooyaan noogu dar waa mahadsan tahay wasiire intaasi kadibna gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye ayaa socod luga ku dhex maray degmada Yufle isagoo ugu dambeyntii uga soo ambabaxay dhunka gudaha magaalada Ceerigaabo iyo Sheekh Axmed Star TV